gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay kumanaan barakacyaal oo maamulka gobolka Banaadir dib u dejin ugu sameeyay waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa u kuurgalayay xaaladda nololeed iyo sidoo kale qaabka dadkan dib u dejinta loogu sameeyay waxaana weli soconaya dib u dejinta loo sameeyo kumanaankan barakacyaasha ah ee ku sugnaa duleedka magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi ayaa ugu mahadceliyay soo booqashada iyo deeqdan uu gudoomiyaha gobolka Banaadir soo gaarsiiyay waa maalinkii labaad laba usbuuc gudihiis gudoomiyaha gobolka ana duqa magaalada Mudane Taabid uu ku soo laabto degmada Kaxda iyo xaafadda waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko oo ay deganaayeen dadka maaragtay runtii aad iyo aad duruufaha gaarka qabay ee dhibiyada runtii isagoo mar hore deeq soo gaarsiiyay markuu arkay deeqdaasi inaysan baahidii marka meesha ka muuqatay ay waxoogaa aysan dabooleynin ayuu mar labaad wuxuu soo gaarsiiyay deeq runtii noocyo kala duwan isugu jira sida maaragtay bacihii maalinka dhaweyd oo kale iyo maaragtay adeegyo kale oo dheeraad ah sidaa daraaddeed waxaan gudoomiyaha leenahay madaxiisa allaha raajiyo aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa qaybta hadda maanta deeqda la soo gaarsiiyey meel maaragtay hobolay uu gobolku u diyaariyey oo qaryeel la yidhaahdo ayaan qaybaan geynay bay waxoogaa ku dheeratay dib uga soo celinay sidaa daraaddeed baan maanta aan rabnaa inaannu deeqdaas iyagana aan u qaybinno oon gaarsiinno si ay wakhtigan kulaylka iyo qabowga iyo dhaxmaha iyaguna ay uga faa'iidaystaan aad iyo aad baan Mudane Taabid ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka degmada Kaxda iyo bulshada ku nool ee qaybaheeda kala duwan isugu jira mudane gudoomiye soo dhawow waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh ee uga danqanayso bulshadaada annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu sidii aad deeqdan noo soo gaarsiisay uguna abaadgudi doono uguna qaybin doono sida ugu habboon dadka u baahan ee tabarta yar ee deeqda u soo garatay maanta adigoo awalba kaalmeeyaha dadka danyarta ah in badan bay degmada Kaxda xabaal kugu haysaa iyo bulshada ku nool mudane gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo goobta saxafiyiintu kula hadlay ayaa sheegay in mar walba ay daryeelayaan dadka barakacyaasha ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho isla markaana aan loo dulqaadan karin dadka amni daradooda ka shaqeynaya runtii mar kale waajib la saaran ay tahay aan imaano degmada Kaxda waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko oo aan imaanay laba maalin ka hor oo ujeedada aan u nimidnay in aan dadka dhibka meesha ku soo gaarno oo mushaawiga ah duruufta adag ay ku jiraan sida gudoomiyaha uu yiri dadkan maadaama qaybtan ay ahaayeen qayb markii hore kambiga daryeel yiraahdo loogu talagalay ee wadeeyay ku fogaatay ee ka soo laabtay maadaama ay soo laabteen haddana aan haysan hooyo oo xagga ay ka soo laabteen ku qasbanaana meesha ay ku soo laabteen ay soo gaarsiinay wixii oo loogu talagalay inta maanta aan keenay waa 200 oo sidii tanda guri ah loo dhisi doono oo dadka maadaama ay ka soo laabteen inta loogu diyaarin doono lana xaqiijinayo insha Allah in meesha ay degan uusan mar dambe waqtiga ka iman sidii degmada iyo gobolka hore heshiis ku saabsan dhulka dadka meesha iska leh ay in muddo 4 sano iyo bar ay dadka meesha deganaan kadibna haddii loo baahdo ama si kale ay timaadana ay jiri doonto muddo ogeysiin ama gelin ah kadibna la cusboonaysiin doono haddii lagu heshiiyo laakiin marnaba aysan dhici doonin dadkan in ayagoo aan ogeyn ama xadgudub aan lagu sameyn marka waa u mahadcelin dhinac kasta bay tahay caafimaadka maalintii MCH guurada hooyinkii sidoo kale waaxda caafimaadka gobolkana ay kormeer ku imaan doonto carraba inaan ku mahadceliyo sidoo kale hay'adda DRC aydan qayb weyn ka qaadatay aad keentay oo dhowr gobol oo lix gobol oo keentay oo ka shaqeynaysa kalimaha ayaga door ka qaadanaya waa waajib masaaran keena tabaaraysan garab istaagna marka lagu baahaya waa markii ficil qofka uu ficil la soo gaaro wanaagsan tahay gaar ahaan ma ahan in la isweydiiyo maxay xagga u soo laabteen in halka maaha isweydiiyo muhiim ah in hooyga
taliyaashooda qaar ka mid ah inala joogaan ayadana waa arrin muhiim ah sababtoo si amni darro aysan uga dhicin ama gabadfallo ama xadgudub aan lagu samayn dadka dhibaatada meesha u baahan maanta la garab istaago marka baaqaygu wuxuu yahay mar kale waa ficil aan ficilka wada qabanno aan isgarab istaagno waxa mudanna waa dadka aan runtii tabaalaysan ee mudan in la garab istaagno dhammaanteen garab istaagno mahad xasan cabdi maatawakal telefishinka star magaalada muqdisho.